mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhowaada Muqdisho Times. Waxaan dhawaan idin soo dayn doonaa waraysi aanu la yeelanay Professor Axmed Samatar oo ku saabsan abaaraha ba'an ee saameeyay waddankeena. Professor Axmed Samatar ku soo dhawow Muqdisho Times. Waxaa la sheegay in ay Soomaaliya ka jirto gaajo iyo abaaro waxyeelay dad iyo dunyaba. Dhibaatada heer intee lag ay gaarsiisan tahay? intaynaan bilaabin dee sida caadada imika inoo noqotay anigana caada ii ah dadka Soomaaliyeed ayna dhegeysanaya waddanka gudihiisa iyo dibaddaba inaan magaca Ilaahay ku salaamo, magaca Islaamnimo aan ku salaamo, magaca Soomaalinimo inaan ku salaamo ayaan doonayaa. abaarta maanta ka taagan geeska Africa, Horn of Africa wixii la odhan jiray aad iyo aad ayay tahay mid oo fool xun oo cabsi badan oo khasaare weyn keentay. wax aynu hore u soo aragnayna laba goor unbaa la sheegayaa inay u dhow yihiin. mid waa abaartii la odhan jiray dabadheer ee waddanka Soomaalida ka dhacday 1970 madaxoogii ka dhacday oo dowladdii Maxamed Siyaad Barre sida dhabta ah si wanaagsan ay uga hortagtay, laakiin dharbaaxo weyn ayaa ahayd dabadheer. muddo badanna way sii jiitamaysay. waxaa loola jeedaa dabadheer way dhammaan weyday oo 100,000 oo dad Soomaaliya ayaa gaajo si xun u gashay. waxaa lagu leeyahay maanta abaarta ka taagan tan geeska oo weliba dharbaaxada ugu weyne dadka Soomaalida ay ku dhacayso dabadheer way ka daran tahay. marka ta kale soo raacda dee waa waqtigii xaaraama cunka loo bixiyey Maxamed Cabdulla Xasan, Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waqtigiisii dagaaladii weeye ta kale ee laga dab qaadanaya haddii fikrad ahaan. marka muddo 60 ilaa 70 sannadood waxaanan hore loo soo arag biyo la'aanta halkaa ka dhacday iyo dabaysha kulul ee ka dhacaysa iyo xoolaha dhammaaday iyo caruurta dhimatay iyo dadka waaweyn ee ku baaba'ay aad iyo aad bay u foolxun tahay. waxaana laga hadlayaa ilaa 3 malyan oo qof ugu yaraan dadka Soomaalida ah inay gaarayso abaartani. meesha la yidhaaho Dadaab oo meel lagu hayo dadka qaxootiga oo imika 20 sannadood jirtay 90,000 oo qof baa loogu talagalay. wararkiina soo ugu dambeeyay imika ilaa shalayna soo gaarayay waxay leeyihiin marka dadku ay soo gaaraan ilaa nus malyan waa 500,000 oo qof oo Soomaali ah ayaa xerada soo gelay. marka in xero kale la furo ayay noqonaysa. marka waa baaba weyn intay jiitami doonto dee weli lama oga, laakiin aad iyo aad bay u fool xun tahay. ummaddii Soomaaliduna si baa aad iyo aad ah ayay arrintaas u haysaa. gaajo iyo biyo la'aanna weeye labadaas. waxay abaartan lagu sheegaya wax kale ma. waxaa loo cabsanayaa inay dhintaan malaayiin Soomaali ah inay u dhintaan abaaraha. maxaa arrintaas ka jira? aad weliba haddii dadka kale aan Soomaalida ahayna lagu daro Ethiopia iyo Kenya iyaguna degan way gaarayaan malaayiin. laakiin ugu yaraan 3 malyan oo qof oo Soomaaliya ayaa maanta la leeyahay ayaa abaartaas gacanta saartay. waxay intaa innaka inoo soo dheer intaan xitaa abaartu dhicin dad fara badan oo Soomaaliya boqolkiiba ilaa 30 ilaa 40 haddaanay ka badnaynba macaluuli ay hayso, malnutrition oo hayo. waa intaanay abaartani soo dhicin oo kal hore amba 2 sannadood horta haddaynu ka hadalno way jirtay. marka dadkii oo sidaa u daciif ah haddana abaari ay u timaado, biyo la'aan iyo cunto la'aan ay u timaado, waa qiyaamihii oo kale noqonaysaa. abaaraha mar walba waxay ku soo noqnoqdaan geeska Afrika. maxaa ugu wacan arrintaas aragtidaada? dee sida dhibaatooyinka waaweyniba ay yihiin wax walba cilmigeega ayay leedahay. inta anigu aan akhriyey amba aan baadhay amba dadka aada u yaqaana ee aniga iga aqoon roon arrimaha caynkaas aan la sheekaystay oo scientists ah oo aada u dirsaya qaarkood 30 sannadood geeska Afrika ay diiradda ku hayeen roob la'aanta iyo saaxilka degmada Afrika ee Sahara Desert qarka ku hayso ilaa Guinea iyo Mauritania halkaa ilaa Soomaaliya sidaa usoo galaysa Sahel region ayaa la yidhahaa. waa dhibaatadu way ku badan tahay oo had iyo jeer khatartu
xagga biyo la'aanta iyo abaartu iyo ayaxa waa dhibaato weyn ba had iyo jeer ugu jirta laakiin haddii la kala saaro sababuhu way isdul yaalyaalaan haddaynu mid mid u kala saarno sababta ugu horeysa waxa la odhan karaa waxa weeye dee hawada saaxil regionka Soomaalidu ay ka mid tahay hawadeedu ayaa si roobku kollaba uu ku yar yahay oo maanta haddaad gabayada ummadda Soomaalida haddaad daristo oo 300 sanadood noqoto amba 200 sanadood aad noqoto waxaad arkaysaa iyadoo laga gabayo laga hadlayo barwaaqo waa biyaha markay jiraan iyo abaar waa biyo la'aan marka biyo la'aanta iyo biyaha oo inagu yar waxa weeye shay dadka Soomaalida maalin walba sheekadooda ku jirta oo marka dadku iswareysanayaan meel kale laga yimaado roob meediin da'ay ayaa lagu bilaabaa salaanta marka la dhaafo marka taas horta way jirtaa oo meesha lagu nool yahay iyo roobka ku yaray waa muddo 100 sanadood wax soo jiray waxa soo raacay oo labaad waqtigii imika ilaa 100 sanadood weeyi imikana aad bay u soo baxaysaa waxaan la yiraahdo global warming ya oo hawadii adduunyada oo si kululaanaysa waxay u kululaanaysaa waxa weeye naqaska dabka la shito baabuuradu naqaska ay sii daayaan warshaduhu naqasyada ay sii daayaan maxaan ku rahay beeraha waxa lagu qodo fertilizerska la yiraahdo waxay naqaska ay sii daayaan waxa bini aadamku uu sameeyo ee warshada laga soo saaro amba baabuurada lagu socdo diyaaradaha lagu socdo waxaasoo dhan naqas carbon dioxide ay sii daayaan hawadii markaa aynu neefsanaynay ayaa kululaanaysa marka hawadu markay kululaatana tabdiil weyn ayay ku sameynaysaa jawigii dadku ay ku noolaayeen weather and climate waxay ku sameynaysaa aad iyo aad bedel weyn bay ku sameynaysaa waxa imika marka dadka scientists-ka ay leeyihiin wadamadii markii hore biyuhu ku yaraayeen saaxil regionka iyo tropical landska ku yaalay ay Soomaaliya ka mid tahay tana ugu biirtay hawadan kululaatay ayaa ugu biirtay oo laga wada qaylinayo marka roobkii wuu sii yaraanaya engegii baa sii badanaya dhulalka barafku yaalana barafkii baa dhalaalaya oo iyaga marka waxa laga yaabaa biyuhu inay ku bataan waxa iman doonta dhulka xeebaha ee aad iyo aad u hooseeya geeska Afrika ay ku jirto Djibouti oo kale ay ku jirto iyo Tojora iyo dhulka caynkaas halkan California iyo New York degmooyinkaas ay ku jiraan waxa iman doonta waqti ay biyo baddu liqi doonto sida ay sheegayaan dadka scientists amba intay go'aan oo jasiirad noqdaan deetana badda laga yaabaa inay noqdo oo magaalooyinka waaweyn ee xeebaha ku yaal oo dhan khatarta waa looga baqayaa markay biyihii barafkii dunyadu ay dhalaasho dee biyuu noqonaya biyi markaa way soo kacayaan markaa labada dhibaato meel biyihii baa ku badanaya oo barafkii dhalaalayo dhulkeenniina waa engegi ayaa ku badanaya roob la'aantiina way ku soo badanaysaa taasuna waa talabaad global warming iyo climate change ta saddexaad ee soo raacday waxa weeye khaasatan 30 sanadood ee ugu dambeeyay ilaa maanta wadankii Soomaalida oo noqday meel wadamada Carabta dhuxusho ay u baahan yihiin laga soo qaato si iyagu markaa ay hilibkooga u shiishaan oo ay cuntadooda u hagaajistaan dhuxul bay u baahan yihiin dhuxushi barbecue dhuxushi markaa in laga keeno wadankii Soomaalida ka mid noqotay marka dalkii Soomaalidu wuxuu noqday meel aan cid ilaalilayn oo markaa dhuxushi ay noqotay major export item ayay noqotay in adduunyada kale loo diro oo geedihii sida loo dhameeyo amba dadka wadanka gudihiisa ku noolay haddaanay wax kale ay wax ku karsadaan ay biyaha ku beeshadaan haddaanay jirin ay cunto ku karsadaan waa dhuxul waa in geedihii la soo gooya taasina waxa la yiraahdaa waa desertification ya oo markaa engegi ayaa sii badanaya geedihii haddii sida loo dhameeyo ta afraad ee soo raacday waxa weeye dagaal iyo adduunyo baaba baa lagu jira imika in ku dhow 20 sanadood ka badan dhul aw dagaal ka dhacayna meel ay xanaano taalo maaha xooluhuna xanaano heli maayaan geeduhuna xanaano heli maayaan dadkuna xanaano heli maayaan dagaal waa baaba dagaalkiina markaa wuxuu keenay in aan xanaanadii geedaha la siinayay iyo dhulka ee la moosayay ee daadka biyaha la qabsanayay waxaasoo dhamay in la dayaco waayo dadkii noloshoodii iyo naftoodii inay la baxsadaan ayay noqonaysaa dagaalkuna wuu sii xumeeyay arrimahan iyo maxaan ku raahayay wadanka cadaawadda taala waxa ugu dambayso iyada oo aynaan dawlad lahayn iyo dad hoggaan aynaan lahayn waxaan fahamsan garanaya
isku hawlaya markay soo socoto sii urinaya eeg marka sanad roob la waayo halkaaba waa in laga gartaa hadduu sanadka labaad roob dhici waayo waa abaar ay noqonayso 2-3 sannadood 4 sannadood hadduu isku raacana hadalkay gabadha marka waxaa jira technical farsamooyin lagu urin karayo inay abaari soo socoto iyo in kale laakiin dee taasi waxaa ka tashan kara oon dad dowlad iyo hoggaan iyo ummad shaqaynaysa ayuunbaa ka tashan kara taana maanta ma hayno markaa cidladana waynu ku dhacnay oo dee ilaa maanta anigu ma arkayo meel adduunyada lagaga hadlayo ummad soomaaliyeed madaxdeed meel walba ay kaga hadlayso dhibaatada taagan oo ay macnaynayso iyo gaajada iyo abaarta anigu ma arkayo taasina waxay keentay dhibaatadeedii iyo guuldarro weyn ayay keentay markaynaan lahayn dowlad iyo hoggaan dhab ah wax ma laga qaban karaa abaarahan soo noqnoqonaya waa laga qaban karaa waxaa jira nin hindiya oo professor weyn ah magaciisa waxaa la yidhaahaa Amartya Sen Amartya Sen waa Nobel laureate Nobel Prize in Economics ayaa la siiyey muddo imika laga joogo malaha 20 sannadood in ku dhow Amartya Sen shaqadiisu waxay noqotay oo bilada Nobelka lagu siiyey arrimaha ku saabsan macaluusha iyo gaajada famine waxa la yidhaaho famine iyo abaartuna way wada socdaan marka isagu wuxuu ku leeyahay wadanka leadership dhab leh karti leh ee dimuqraadinimo waliba ku dhaqmaya ee jaraa'idka iyo reeriyoodyada iyo telefishinaduna ay yihiin kuwa xor ah oo warka ay soo ururin karaan dowladuna ay tahay mid dimuqraadi ah dadka la soo toortayna ay markaa karti ku soo baxeen wuxuu ku leeyahay warka markiiba waa la isgaarsiin karaa dhibaatooyinka soo socda iyo abaarta iyo hadday macaluuli timaado soo socoto markiiba waa la garan karaa warkaa la isgaarsiin karaa degdeg markaa gurmad ayaa dhacay marka isagu wuxuu ku leeyahay dulka dadka dimuqraadinimadu ay ka dhacayso ay ka taagantay ee leadershipka hoggaankuna si dimuqraadinimo buuxda oo ku soo baxo jaraa'idka iyo reediyooyada iyo warisgaarsiintuna ay xalaal tahay oo ay madax bannaan tahay kama dhacdo macaluusha badani kama dhacdo ayuu ku leeyahay cilmigiisa taasuu ku dhisay waa la gartay inay dhab tahay the Nobel Prize jaa-isadaasaa lagu siiyey marka waxaa lagaga adkaan karaa dee horta in geeda goyskii la ilaaliyo wadankan Kenya gabadh Nobel Prize iyaduna ka qaadatay Wangari Maathai baa la yidhaahaa waa caan weeye Africa waxay tahay scientist muddo 30 sannadood waxay ka shaqaynaysay sida geeda loo beerayo wadanka Kenya مليون iyo badgeed ayaa ururkeegu ay beereen oo imika ilaa 30 sannadood marka waxa weeye geedaha la goonayo in wax kale geeda kale lagu bedelo ha loo baahdo xaabadii laakiin geedii marka la goonayo ku kale in laga agbeero waxaas cilmi iyo dawlad iyo madax iyo aqoon iyo dad meel u socda ayay u baahan tahay marka abaarta waa laga adkaan karaa gaashaan baa laga samaysan karaa cuntaa meel la dhigan karaa waqtigu markuu barwaaqada yahay in meel la dhigo oo lagu raseeyo si waqtiga abaartu hadday ay timaado cuntadaa taalo degdeg dadkii loo gaarsiiyey aanad baryaba adduunyo kale ugu tegin marka abaartu ma aha waxaan wax laga qaban karin waa laga qaban karaayo markay soo socotaa la iska sii eegi karaa waa laga qaban karaayo waqtiga barwaaqada ayaa meel wax la dhigan karaa si waqtiga abaarta dadka loo gaarsiiyo degdeg cunto waa maxaan ku rahay la iska ilaalin karaa ama waxba laga qaban karaayo adduunyada markiiba warka la gaarsiin karaa haddii tamartaadu ay yar tahay markiiba oo baahida caynkaasaa jirta halkaasaa jirta halkaa iyo halkaa intaasoo qof rag iyo dumar caruur waxaasoo dhan marka ma aha waxaan wax laga qaban kara waa waxa laga qaban karaa waxay abaarta iyo macaluushu had iyo jeer baabiisa dadka aan tamarta lahayn aan dawlad lahayn hadday dawlad leeyihiin dawladoodu ay tahay wax ma tarto oo aan garasho lahayn oon aqoon lahayn weeyi laakiin ma aha abaartu waxaan inta mucjisad iska dhacday oo waxba aan laga qaban karin dee mararka qaarkood daadkuba wuu yimaadaa laakiin inteeda badan gariirka waxbaa laga qaban karaa daadka waxbaa laga qaban karaa macaluusha waxbaa laga qaban karaa laakiin dee dad waxaa u diyaar garoobay waqtiga ay dhici doonto ayaa wax ka qaban kara laakiin haddaanad u diyaar garoobin fahmadeedii aanad lahayn foojigaanteediina aanad lahayn iyo aqoonteedii dee dadkaagunba ku baabi waana tamaanta ina haysata wey ma la yaabtay sida ay Soomaalidu isugu gurmanayaan oo ay isku gargaarayaan gaar ahaan Soomaalida degan Minnesota dadka Soomaalidu anu intaan ku aqaano iyo intaan taariikhdooda akhriyay
haddaad wadnahooga iyo caqligooga si xaqa oo dhaba u taabato waa dad naxariis badan wey waa dad naxariis badan oo wixii ay hayaan ay karti u leeyihiin markaas bixinaya oo damqadaha way yihiin waanaad arkaysaa maanta oo telefoonada dhacaya meel walba statekan aynu degannahay Minnesota oo la leeyahay ilaa 40,000 oo Soomaaliya degan Malaysia Ingiriiska meelo badan ayaa dadkii Soomaalida caadiga ahaa ee dibadda u soo baxay ay kaceenay waxay ururiyaanba si loo gaarsiiyo amba qofku magaaladu ka yimid ha noqoto amba dadka Soomaaliyeed ee ballaaran ee waddanka geeska Afrika ku go'doomay hal la gaarsiiyay in sadaqada lala baxo degdeg loo gaarsiiyo marka dadka Soomaalida waxay ku tusaysaa potential inay leeyihiin ay naxariista ku gartaan inay leeyihiin maskax maxaan ku raahayay fircoon oo fahamta laakiin de warka in la soo gaarsiiyo oo si dhaba loo soo gaarsiiyo oo ay arkaan waxay bixinayaan inuu gaarayo qofkii iyo dadkii loogu tala galay waxay u baahan tahay shaqo weyn oo coordination weyn bay u baahan tahay laakiin dadka waxaad moodaa dibadda u soo baxay intooda badan inay damqanayaan oo qof walba meeshii uu joogay oo iska dirayo uu leeyahay anigu intii aan bixin kariyo wixii aan tari karo diyaar baan u hay laakiin in la sii kordhiyo wacyiga iyo maxaan ku rahay taladaas in la sii kordhiyo wey anigu inta kale aan ku darayaa waxa weeye reaction waxbaa dhacee maxaa laga yeeli waa goor dambe wey waa goor dambe dadka adduunyada kasbaday waxay ku shaqaystaan waxa dhici doonaa sidee baynu imika iskugu sii diyaar garoonaa inaan wax ka qabanno hadday dhacdo amba waxa dhici doona si aanay u dhicin halka la isku dhaafay waa halka laakiin markay kugu dhacdo ay kugu hambaarsato sidee baan uga kacaa waa goor dambe oo kubadii goor horeba way dhamaatayba khasaarihiina aad buu u ballaadhay marka dadkeenu in loo diyaar garoobo arrimaha caynkaasa the institutions baynu u baahanahay national institutions maanta meel loogu soo hagaago national institutions ma jirto waa kaa dadkeennii dee maanta 20 sannadood iyo in ka badan daranyada maanta Soomaaliya haysatay ugu dambeysay waa taa waa abaartaas waa mahadsan tahay Professor Axmed Samatar aduna aad baad u mahadsan tahay dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan salaam baan u dirayaa wixii taraa iyo wixii de leedin soo gaarsiin kara waanu idin soo gaarsiin idinkuna ha quusanina ya de sidaa nabadgelyo